xoog baan idinkaga qaadanaa oo idinku qabsanaynaa qabiilka adiga ma jiro hadda maanta calankii buluuga baa ka taagan kaalada ka fuji idinkana yeeli mayno nin kasta dalkiisa ilaahay baa ku beeray ku abuuray xoog baan idinkaga kicinayaa oo xoog baan idinkaga qaadayaa oo xoog baan idinku xukumayaa meel kama qoranta ilaahayna aqbali maayo dalkiisa ninkii yidhahda anaa war dalkayna iska leh waa argagixisada idinkeeda ka timaadaa warsangelina waa in uu naf iyo maalba waa inuu ka qayb gala dagaalka laascaanood ka socda maanta ninka laascaanood iska xaadirinaya waa aniga wallahi dhulbaantina aan idinku egteen war ka kac meesha bismillahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin aniga waxaa la yidhahdaa maxamed jaamac waxaan ku magac dheerahay jenaraal indhayare halkan saxaafadda waxaan u muhiim inaan idhaahdo laba kelmadood badinna maayo hadalka horta marka ugu horreysa sideedaba colaad khayr ma leh colaad in la huriyaa khayr ma leh rasuulkeenna wuxuu uhi calayhi salaatu wassalaam alfitnatu naa'ima lacnatullaahi calaa man ayqadahaa fitnadu way huridaa cadhada ilaahay ku dhacdo qofkii kiciya horta marka ugu horreysa magaalada laascaanood waynu ka warhaynaa madaafiic baa lagu garaacayaa dad birmageyda ah caruur iyo haween iyo masaakiin iyo masaajidadii lagu tukanayayba waa la dumiyey sida ii muuqata waanu soo halgannay oo siyaad barraana dulmiyey oo maxaan ku waa dhibaatoonnay oo baad had iyo goor musabix iyo asxaabtiisu ay ka hadlaan tan iyagu ay samaynayaan laakiin ma arkaan taasaa nasiib darraa laascaanood wax badanoo horaan ka hadlay anigoo nimankaas waa abtiyaashay anigoo u sheegaya dhibaatada ay meesha ku qabaan inaan loo dulqaadan karin waxaa dhici jirtay laascaanood habeenkiina toban baa la xidhaa subaxbaa min $100 laga qaataa la sii daayaa habeen kasta joogtay ahayd taasi gumaysi bay ahayd haddii maanta dhulbaanta uu ka gilgishay dhibaatadii iyo culayskii lagu hayay haddee waxay xaq u leeyihiin midda kale dadku waa qabaa'il ninba ilaahay meel buu ku beeray dhulbaantada sool ilaahay baa ku beeray xoog baanu idinkaga qaadanaa oo idinku qabsanaynaa qabiilka adiga ma jiro ismadu dalka iyagaa xukuma dalkooda iyagoo shacabkooda wata dalka iyagaa xukuma go-aan bay qaateen go-aankay qaateen waa in lagu gacan siiyaa ma aha in muuse yidhahdo ha la soo qabto xabajoojin baanu samaynaa halkana waa idinka garaacaynaa madaafiic that's quite impossible wax macquula maaha anuu hargeysan ku dhashay ku koray intaa ku leekaaday ilaa aan dugsi sare sheekh kaga baxay kabacdina ciidamadan galay oo la ii qaatay intii ka dambaysayna xamar dhulkaasi baan ku maqnaa 1985kii baa hargeysa dib aan ugu soo noqday ugu horreysay 84kii baa ahayd 85kii baa ahayd waxaa weeye horta dadkii aanu la soo korreeyey dadkan hadda joogaa isku midba maaha dadkaan la soo korreyna waan garanayaa kuwan hadda joogana waa fahmi laana mid kale ismadiinnu waa inay samaa ka taliyaan ismadu nin ka mida hebelkaa jambiir baa la yidhahdaa ma aqaan wuxuu yidhi calankaas somalilan ahayn laascaanood lagama ogola oo xataa ilaahay ma ogola ma waxay baa ku soo degey waa ka calankii buluug ahaa iyo kii khatime ka taagan yihiin doonad ka soo fuji waxaan u malaynayaa isaaqinaanu taa ka midaysan haddii ay ka midaysan yihiinna dee ha caddaystaan waxgarad baad leedihiin samakataris baad leedihiin haddaad muse ku waafaqsantihiin inuu dadka dulmiyo oo uu yidhaahdo degaankiina anaa leh oo uu laayo oo madaafiic ku garaaco wax la qaadan kara maaha haddii kale soo caddeeya inaad ku raacsantihiin iyo in kale
arrintan uu muuse hawsheeda dabada ka wado taa waxaan uga baxayaa mandaqadan anigu aan joogo warsangeli iyo dhulbaante horta way isu gowracan yihiin wixii xare warsangeli ka dhaca dhulbaantana waa ka dhacayaan wixii dhulbaante ka dhacana warsangeli waa ka dhacayaan shaki la'aan waxaan maqli jiray maamaha anigu waaba layga badiyaaye libaaxii saddexda dibi kala doortay oo mid mar yidhi adiga lagu taabmay kaasiin horta iska dilaynaa oo kalena sheekeedu ku socoto warsangeli marka waxaan u sheegayaa haddaad jeceshiin iyo haddaad nacabtihiin baa dhulbaanti waa ku gowracantihiin taakulaanu diro raashin baanu diro raashin iyo waxaas mashaq waa in naf iyo maal iyo mood baa lagaga qayb galaa oo walaalihiin laisgarab taagtaan oo xaqiiqo ah aan been ahayn annagu mabaanaan maaragtay qabyaaladda ilaa heerkaas annaga naguma jirto naguma jirin waxaa weeye soomaali un baanu raadinayna soomaali baa daarood haddaad maqasho daarood waa soomaali raadis laakiin beesha isaaq baan raadinayaa oo waxaan nationality gooniya eeg xisbiyada siyaasiga ee ugu horreeyey north wuxuu ahaa SNL waa Somali National League waxaa ku xigay SNC Somali National Congress waxaa ugu dambeeyey Somali National Movement waa SNM nationality-ga haddaba aad ka hadlaysaan muxuu yahay mid isaaq baa mise waa tii dalka xaqiiqadu waxay tahay waa mid isaaq waxay raadinaysaan taasina wax maaragtay dee Soomaali diidnimo ah weeyaan oo annagu idinkuma waafaqsanin idinkana yeeli mayno nin kasta dalkiisa ilaahay baa ku beeray ku abuuray ismada maxaan ku dhahaa sool jooga laascaanood gaar ahaan iyagaa dalkooda u taliya iyagaa ku dhashay iyagaa ilaahay ku beeray iyagaa iska leh xoog baan idinkaga kicinayaa oo xoog baan idinkaga qaadayaa oo xoog baan idinku xukumayaa meel kama qoranta ilaahayna aqbali maayo ninkii dalkiisa difaacday waa argagaxusa miyaa horta muuse waan ku weydiiye dalkiisa ninkii yidhahda anaa war dalkayr iska leh waa argagaxusada idinkeeda ka timaadaa waxaan hadda buurtan dhoobani soo idinka maaha haddana waxaaba la sheegaya qaar ad u yeedhato la taadaan kaalay dagaalka gala lacag inaad siisaanna waa loogyahay laakiin nimanka dhulbaantee mujaahidiinta masaakiinta ah baa argagaxiso ah ilaahayna ka aqbali maayo bini aadan iska daaya oo caqliga geli kara keena dalkanna iyagaa le dalkooda faraha uga qaada warsangelina waa in uu naf iyo maalba waa inuu ka qayb gala dagaalka laascaanood ka socda maanta raashin baan geeyey kanaan geeyey wallaahi waxaas inaan shaqaynin ma dadku waa qabaa'il qabiil xukumi karaa ma jiro qabiil gumaysan karaa ma jiro qabiil kastaa meeshuu ilaahay ku abuuray buu joogaa qabiilka linta u yimaado ma gumaysan karo 30 sanaa ka soo wareegtay burburkii Soomaaliya weli qabiil gumaysanay ma aragteen haddaad maanta musabixi aad taa keentaan suuragal baa mana soconayso ninka maadka qabiil kamaadka dalkooda inaga madax bannaan waxaa lagu laynayaa waxaa weeye midnimada Soomaaliya aanu rabnaa soo maaha midnimada Soomaaliya anagoo dhan baan raadinayna Soomaaliya waa mid Soomaali waa mid waxa lagu laynayaana waa intaa oo bal horta duruucda war waxa meesha la isku hayaa maxay tahay Soomaali baan hayamatiida waxa tahay annagaana tahay weeyaan intaa laga mataqaanaa dib loo eego bay aniga ila tahay waana sida ay tahay warsangeli waxaan leeyahay haddaydan hawsha laascaanood ka socota aydan ka qayb gelin marka bari iyaga laga soo baxo idinkaa laydiin imanaya wallahi kabaad af ku qaadaysaan haddaad garan kartaan iyo haddii kaleba waa arrintii eedheydhkii baa soo noqotay sheekadu iyada soo celcelisa ninka laascaanood iska xaadirinaya waa aniga warsangelina dhammaan waxaan leeyahay damiir laawanimada iska daay dhulbaanta idinkuma eegteen haddii laydin soo wareeri lahaa maanta wallaahi dhulbaanta inaan idinku eegteen cidda ugu horreysa gurmad ha noogu timaadan dhulbaanta aan lahayd idinkuna maanta weli giderbiyadii badan baa fadhidaan war ka kaca meesha